xarunta daraasaadka aadam ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho ayaa soo bandhigtay daraasad ku saabsan burcad weerarada ka soo ifbaxday inta badan degmooyinka magaalada muqdisho. kooxahaasi gaangiska ah ayaa bulshada ku nool gudaha caasimadda waxay ku hayaan dhibaatooyin kala duwan. mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir, hay-adaha dowladda, maamulada degmooyinka, culimada, haweenka iyo aqoon-yahanada ayaa ka qayb galay bandhigga daraasadda xarunta aadam ayaa ku soo bandhigtay waxyaabaha sababay saameynta iyo sida loo xallin karo falalka gurcan oo ay geysanayaan kooxaha weerarada. maxamed aadan jimcaali doctor koofi ayaa sharaxaad ka bixiyey daraasadda ay soo bandhigtay xarunta aadam. shakhsiyan aniga igu kallifay inaan daraasad ku sameeyo arrinkan waxa weeyaan dhinac magaaladan ku koray, magaaladan ardayaan ka noqday, macallinan ka ahaaday, sargaal amniyaan ka noqday, shaqooyin kala duwanna waa ka qabtay runtii. sidoo kaleeto magaaladan ciyaal weeraan ka noqday, waana sababta igu riixay sababtoo ah ciyaal weeradii aan naqaanay iyo midda hadda laga sheekeynayo isma lahan. waxaan rabaa ciyaal weernimadeedii inaan raacdo haddii aan la yiraahdo, sababtoo ah waxa laga hadlayo hadda yaallo ma ahan wax la yiraahdo ciyaal weer. qaab dhismeedkooda waa qaab dhismeed horta cajiib ah. madaxay leeyihiin, waxay leeyihiin dad howlgeliyaal ah, waxay leeyihiin dad u shaqaalaysiiyo dadka usoo qora, waxay leeyihiin dad dhaqaale ay u dhiibtaan. howlgallada qaar markay fulinayaan habeenkii isku yimaadiin, meel cidla ay isugu yimaadiin, sirtuna aaday u badan tahay. yani qaab dhismeed cajiib ay leeyihiin oo nidaamsan. wixii ciyaal weerada maaragtay la yaqaanana ma ahan. marka waxaan rabaa mar kale aan ku celinayaa, ciyaal weerada ayaan nagala caayin, annagaa soo ahaan jirnay. burcad weerar la yiraahdaa. waxaan rabaa daraasaddan wixii ka dambeeyo in la isticmaalo burcad weero. eragaasan aniga qaba. ciyaal weerar haddaad tiraahdo waa 30 jir iyo 20 jir adiga ka dhig marka ciyaal weerar ka dhig. waxa ay geysanayaanna ma ahan wixii la yaqaanay. khawaarijtu ma ka qayb qaadan kartaa xalka? hadda waxaa lii sheegay qolada qandaraaska siisay ma naqaan, laakiin kolley wax iyaga xitaa ay kasoo fakereen ma ahan. waa wax dad kale ay maaragtay u adeegsanayaan. ma bulshooyin dacwo ah ayaa u tegay. waxaa lii sheegay ilmihii inay laynayaan, qofku waa dilayaan, waxay leeyihiin waa burcad waaye ama daraagiisu cid cadaynaysana ma jirto. marka taa waa dilalkii sharci darrada ahayd oo ay weligood geysan jireen oo xaqdarrada ahayd ayaan u qaadanaynaa. xalna ma noqon karto, qaybna kama ahaan karaan. waxaan kaloo qabaa mushkiladan xoog laguma xallin karo, waxay u baahan tahay maskaxda inaan ka shaqaysiino. gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir maxamed axmed diiri yabo ayaa sheegay in burcad weeradan tallaabo adag maamulka gobolka banaadir uu ka qaadi doono, isagoo bulshada caasimadda ku nool ugu baaqay inay arrintaasi kala shaqeeyaan laamaha amniga. waxaan rabaa halkan inaan ka caddeeyo dadka Soomaaliyeedna u sheego, gobolka banaadirna aan u sheego, culimadii waa joogaan, aqoon-yahankii waa joogaa. dadkaas waa dad yar hadda taariikhahaas soo sheega soo maray, laakiin hadda bilow ah oo maanta la qaban karo, lala dagaali karo. degmooyinko dhanna aan ka wada jirin oo meelo degmooyin yaroo cayiman oo 4-3 hadda xoogaa dhaqdhaqaaqooda uu ku badan yahay. ayagaasaa la rabaa gacan bira in lagu qabto, lana soo sheego meelaha ay ku dhuumaalaysanayaan. hadduu ilaaha yidhaahdo waa mahadsantihiin. doctor adiguna aad iyo aad u mahadsantahay. waxaan rajaynaynaa daraasadan iyo midda kaleo la samayn doono ku xigtaba inaan ka tasho doono hadduu ilaaha yidhaahdo. intay socotay bandhigga daraasadda waxaa xarunta daraasaadka ee aadam ay qabatay dood ku saabsan sababaha iyo saameynta iyo siyaabaha loo xallin karo kooxaha burcad weerada ah ee muqdisho ka jira. faadumo maxamed cali oo ka socotay wasaaradda haweenka xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo doctor cabdifataax axmed barre oo ah agaasimaha guud ee waxbarashada gobolka banaadir ayaa qaba sidan. dayac waa caruur dayacantay, waa aan helin wixii xaqa u lahay ee aasaaska nolosha, wixii uu xaqa u lahay uusan helin. ay ka mid tahay daryeel naxariis leh, jacayl, cayaar, in saaxiibtinimo, waxyaabaha ugu badan oo dhibaatada ilmaha geliya waaye. annaga waxaa laga yaabaa markii daryeel la yiraahdo inay nagu soo dhacdo kaliya hoyga iyo cuntada iyo waxbarashada. waa qayb ka mid ah, laakiin qaybaha kale ayaa maqan. marka dayaca waa badan yahay qaybihiisa. marka caruurtoon helin xuquuqdii aasaasiga ahayd waxay keenaysaa inay dayacmaan. jiilkan hadda asaasmay
duruufo badan ku keeni karo inay arrintan galaan oo waxbarasho la'aan ay qayb ka tahay ama iskuul ha ka daahaan ama iskuulka ha ka haraan ama walwal kale ha ku keentaba laakiin waxbarashadu in xal u noqon kartana waxay qayb ka tahay daraasadu meelaha ay xoojisay intaas marka laga tago agaasinka wuxuu muhiim u arkaa in adeega waxbarasho heer gobol loo daadajiyo agaasinka wasaaraduna iyo hay-adaha ka shaqeeya waxbarashaduna ay aada ugu dhiirigeliyaan garabna ku siiyaan gudashada waajibaadka waxbarasho arrintaas waxay meesha ka saari doontaa daraasadus waxay sheegtay in iskuul amni uusan jirin arrintaas marka waxay ka saari doontaa dayaca amni iyo kormeer la-aanta iyo ka warqab la-aanta yuunus duraan cali warbaahinta qaranka muqdisho